ninkii reer bani Israa'iil ahaa ee 99 naf gooyay ee yidhi nin caalima oo mas'alad diin iyo weydiiyay ii tilmaama nin raahiba ayaa loo tilmaamay. raahibku waa ninka caabidka cibaadada badan leh laakiin aqoontiisa ahkaamtu ay yar tahay weeyaan. dadna markaas uu yimid oo wuxuu ku yidhi 99 naf baan gooyay toobad miyaan leeyahay? markaa buu yidhi may adigu toobad ma lihid. fakammala bihi 100 baa la yidhi boqolkiibuu isagii kaga dhigo qoortu ka gooyay isagii boqol buu kaga dhigay. haddana ninkii uu fadhiisan waayey wuxuu yidhi ila raadsada buu ila raadiyo ila ii doondoono ii tilmaama nin caalima oo mas'alada aan weydiiyo toobadda. markaas fadulla calaa caalimin nin caalima oo ahkaamta yaqaana ayaa loo tilmaamay. laana caabid kasta caalim maaha baa la yidhi laakiin caalim kasta caabid uu noqon karaa. dadna markaas nin caalim loo tilmaamay caalimkiibuu u yimid mas'alad buu weydiiyey wuxuu ku yidhi boqol naf baan dilay toobad miyaan leeyahay? markaa buu haa toobad waad leedahay buu ku yidhi. toobadda iyo adiga cid inay dhex mari kartaa ma jirto. toobadda waxay ka dhaxaysaa addoonka iyo rabbigii. boqol nafood haddaad dishay toobaddaada haddaad doonay in laga aqbalo oo ansaxdo waxaa shuruudeeda ka mid a waddankan aad ku nooshahay waa dhul xun weeyaan oo macnaha dad xunxun baa ku nool. dadkaasi waa dad mar walba dhiigga daadinaya oo dagaal iyo rabshad iyo maaragtaane qaylo mar walba u taagan iyo dhibaato u taagane ka dhexbaxa buu ka yidhi mujtamacan. oo xaggee tegaysaa? mujtamac wanaagsan baad yaa kuu tilmaamaya. dhulkaasaa tegaysaa dhul laydhaa meel heblaayo dhulkaa dad wanaagsan baa ku nool oo ilaahay halkaa ku caabuda. dadkaasaad u tegi deedna ilaahay la caabud buu ku yidhi dadkaas. deedna way sidii buu yeelay ninkii. waddankii uu dhiigga uu ku galo dhagarta uu ku galay buu bedilay. waddankii uu u hijroonayay dadka wanaagsan ay ku noolaayeen isagoo aanan gaadhin ayaa ajashiisii dhexda ku qabato oo u dhintay. malaa'ikatulcadaab iyo malaa'ikaturaxma isku qabatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. innakuna sida qofka bini'aadanka marka ruuxdu ay ka dhacdo aan jidhkiisa maaragtaane kafanka iyo nacashka iyo qabriga aan ula diyaargaroobayno ayaa qofka maaragtaane ruuxdiisuna malaa'igta ayaa u imanaysa. hadduu ahluljanno yahayna malaa'ikaturaxma qaadaysa buu nebigu yidhi. hadduu ahlunaar yahayna malaa'ikatulcadaab baa qaadaysa. deedna labadii malag baa isku yimid oo qaar waxay leeyihiin waa ahlannaar. boqol naf buu qabaayo waa dhagarqabe ninkani naar baan u qaadanaa ruuxdiisa annakaa qaadayna. qoladii kale waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ila allaahi caza wajalla ilaahay buu u soo noqdo uu toobad keene maaragtaanay jannada iyo xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa. markaasaa malag suurad aadamiye leh ayaa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala. deedna markaasaa malagii la yidhi waxaad mitiraysaa dhulka uu dembiga ku galay iyo dhulku u hijroonayay qiyaas baa lagu yidhi. deedna markaasaa waxaa u batay dhulkuu u socday buu markaa ayuu u dhowaaday taaka intaa leeg baa la yidhi. wa fii riwaayatin riwaayad kale wuxuu nebigu yidhi ilaahay baa amar ku siiyey dhulkuu u socday ee dadka wanaagsan ay ku noolaayeen baa lala hadloo lagu yidhi addoonkaasi waa toobad keene u dhowow. deedna taaka intaa leeg buu u dhowaaday taaka intaa leeg. sidaasee markaa malaa'igtii naxariistu ay ku qaadeen oo ahluljanno ku noqdaan la yidhi.